xafladan munaasabadan caawa waxay noo ahayd in la isku barto golaha wasiirada cusub iyo baarlamaanka galmudug isku bartaan inta joogta oo runtii aan isleeyahay tiro yar baa ka maqan in la isku barta kadib sidoo kale waxaan iyana ka caawa ku saabsaneed xafladan inaan u mahad celiyo guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh sidii ay hawshii muddadii ay jireen u soo qabteen u soo dhabar adeygeen oo ay ugu dambeysay inay shalay ansixiyeen xukuumaddii aan u soo xulnay ee aan u soo jeedinay inaan uga mahad celiyo aad iyo aad xildhibaanada sharafta leh u mahadsantihiin guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh wixii caawa ka bilowda sidii horeba loo sheegay xukuumad dhinac walba laga soo xulay dhinac walba laga fiiriyey runtii tayo iyo hufnaan iyo karti leh aanan ku kalsoonahay inay ka soo bixi doonto wax intaan sheegayno ayaad shalay meel mariseen la xisaabtankeeda iyo korjoogtaynteedana waa idiin bilaabatay waana idiin bilaabanaysaa insha allah isbarasho ka bacdi waxaan is leeyahay xukuumaddaasi waxay tahay xukuumad aan xamar degayn wasiirre aan xamar degaan oo ahayn wasiirre aan dibadda aadayn inay shaqo u aadaan maahane waxaan idiin keenna wasiirro golo wasiirro oo marka ay safrayaan u baxaya safar shaqo oo kaliya inta xamar la deganaado maalin un imaan mayaan galmudug haddii ilaa yidhaahdo sidoo kale waxaan mar haddee galmudug ku badnaa jirtay in xamar iyo intay u sokoyso la joogee aniga halkan waxaan joogaa 5 bilood iyo xoogaa hal maalinna ma tegin xamar marka madaxweynahana sidaas oo kalena waxaan leeyahay iyo madaxweyne ku-xigeenku xamar ma deganaa doonaan haddii ilaa yidhaah halkaas waxaa ka cad galmudug in si dhab ah loogu shaqaynayo waxaa lagu xama jiray galmudug dowlad goboleedyada midda xamar ugu furan oo ugu dhowaa galmudug midda xamar ugu socodka yar noqonaysa haddii la yidhaahdo hawl badan baana sugaysa sidii la sheegay waddo dheer baanu u soconnaa insha allah ilaahay idinkii waanu ku guulaysanaynaa waxaan rabnaa xukuumad iyo baarlamaan iyo shacab inaan gacmaha isqabsanno mas-uuliyad wadareed ay tahay inaan ka wada mir dhalino ayaan haynaa na wada saaran inaan gacmaha isqabsanno amni iyo kala dambayn aan ku soo celinno dhammaan haddii ilaaha yidhaahdo deegaanada galmudug oo aan cadowga argagixisada ah dhulka ay la hareen waxbarasho u diideen caafimaad u diideen horumar u diideen xorriyad u diideen inaan ka xoreyno insha allahu tacaala gudaha galmudug inaan ka dhowrno colaado yaryar iyo isku dhacyo reer guuraa ka dhex dhaca maalin walba inaan ka dhowrno sidaad ogtihiin maalin dhood sidii uu soo saaray asbuuc ka hor wasiiradii intaan la ansixin meelay wax ka dhacdhaceen ay tageen oo runtii ansixinta ay ku sini weysay ma dhici doonto lamana aqbalayo wixii caawa ka dambeeya qof qalad uu galay ama dhibaato qof uu geystay dad Soomaaliyeed in dhiigoodu macna darro isugu baxo dembi qofkii gala asay ku gaartaa insha Allah isagaan loo raacanaya deegaano iyo meelo la isku qabsadana
ma dhacayso oo waxaa mas-uuliyadda iskale dowladda ciddii deegaan iyo meel wax laga sameeyo loo fasaxana way samaynaysaa deegaankii aan fasax loo haysanna lagama samayn doono saxna ma ahan baahi waxaysan ka jirin oo looga jeedo waxyaabo kale lama samaynayo arrintaasna wasaaradihii lahaa waa aan siinay inay ka howlgalaan haddii ilaah yidhaahdo meelahan runtii galmudug waxaa aad u soo laalaabta isku dhacyo yaryar oo dadka reer guuraaga dhexdooda ka dhaca oo dhibaato keena taasna waxaan rabnaa inay ku istaagto oo ay ku dhammaato inay qof wax uu geystay ay ku ekaato ee aanay noqon wax la isugu soo safto iyo wax la isugu soo hiiliyo toona inaanay ka dhicin insha allahu tacaala dib u heshiisiintii siyaasadeed guul weyn baan ka gaarnay haddii xitaa qof markaas bacdi tabasho xitaa la soo baxa uu jiro iyada lafteeda diyaar baan una qof kasta oo reer galmuduga oo aan xumaan wax ku doonayn oo aan dhibaato wax ku doonayn diyaar baan u nahay inaan la hadalno la fariisanno isqancinno diyaar baan una sidoo kale tabashooyinka qaarkood ama tabashooyin haddii ay jiraan iyagana tabashadii aan oo salba leh ama jirta waa ka garaabaynaa waana ka qancinaynaa hadduu qof qabo iyo hadday kooxa qabto iyo haddii degaan qabo intaba waxay noo joogtaa mar walba inaan gacanta u haatino yaa wax qaba inaan idhaahno laakiin cid qofka wax qabaa waa inuu noqdo qof tabashadiisu ay wax saxa salka ku hayso waa inuu noqdo qof tabashadiisa ku doonaya si nabada iyo walaalnimo iyo midnimo inuu la gaaro wax ku doonaya ee uusan noqon qof waxaan la aqoon doonaya iyo qof wax kale u socda runtii taasna ummadoo dhan bay iskaga furan tahayoo dib u heshiisiin iyo nabadayn iyo isqancin ma dhammaato waxaan hadda aad iyo aad noogu yaalla oo aan rabnaa inaan haddana bilow fiican noo jooga arrimaha haddaan ka soo hadlay oo dib u heshiisiin bulsho ah oo arrimahan deegaanada iyo meelaha qaar waxyaaba hore oo ka dhacay oo weli iska sii jira iyo isku kalsoonidii iyo is-aaminaadii oo yaraatay dadka qaarkiis meelaha deegaanada qaarkood iyadana waxaan rabnaa inaan si dhaba u guda galno haddii ilaa yidhaahdo wasaaradda arrimaha gudaha waa haystaan ogolaanshaheedii iyo ka howlgelideedii waa u idanay inay gacanta hoos u geliyaan caawa ka bacdi ilaah idankii waa shaqo waa hawl waa horumar dhinac walba wasiiradana xildhibaanada la xisaabtama sida aad guddiga u kala tihiin ula xisaabtama u dabagala isla xisaabtan saxa oo ka turjumaya dowladnimada iyo mas-uuliyadda iyo hawshan hortaalla haddii ay hawshu iska ahaan jirtay howlaan gadaal loo soo fiirinayn ma dhacayso insha allah ilaahay idankii xukuumaddaani way shaqaynaysaa iyada oo kaashanaysa qaybaha kala duwan ee galmudug guul iyo horumar iyo barwaaqa noo ballana insha allahu tacaala caawa waxay noo tahay habeen dardaaran habeen xukuumaddiina lasoo meel mariyey baarlamaanka iyo xukuumaddiina isbarteen guddiyadii iyo shaqadii say wasaaradda u kala lahaayeen ay isbarteen lagu kala baxay hawshaas meelaha qaar waxaa laga xusay wasiiradu xafiis iyo wax ka horeeyay ma dhaxlin meel bannaan iyadoo ahaan insha allah waxaan ka aan hadda asaasaynaa wixii aan la dhaxlin wasaaraddii wax dhaxashayna oo xafiis iyo dhaxashay agab u timidna waa mahadsan yihiin agabkoodii xafiiskooda la wareegeen tii kalena aasaasan ka bilaabaynaa waana dhaqaaqaynaa haddii ilaha yidhaahdo aad iyo aad mahadsan tihiin guulaan noo ballana horumaraan noo ballana galmudugta cusub
waxaan nala ka sugayo inaan soo xaqiijino insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.